kamida abwaanada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa soo bandhigay gabay ku saabsan waxqabadka madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed tan iyo intii la doortay. Abwaan Cabdi Maxamed Aadan oo loo garan og yahay Cabdi Madoobe ayaa ugu talagalay gabaygan madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen. Erayada maansadana waxaa kamid ah Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Dhammaan waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed Ramadaan Kariim meel kasta aad joogtaan waa salaamaya salaan bacdi maanta halkaan waxaan ku duubayaa gabay tix yar oo la yiraahdo gaftiid baa la dhahaa aana ugu talagalay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda Koonfur Galbeed aan kula hadlayo marka nin magaciis bay taabanaysaa ha yeeshee ninkaas kaliya kuba koobne ummadda Koonfur Galbeed oo dhan bay macnaha taabanaysaa aana kula hadlayaa marka sidaas weeye sidaas aad ula soconaysaan kulli macnaha intaas waxaan horreer uga dhigay inaad fahanteen ayaan horreer uga dhigay marka haddana tixdii baan inoo bilaabayaa sidaas aad ula soconaysaan lafta garan garadkaba horreynaad ku gaamaadaane giyigeenoo dhan wuxuu ahaan jiray gola coolaadeede gobollada dhammaan haddaad yaraa hagaadheene isku celin guumaystihii madaxa ka gooyay magees marogod ku leeyahan gabayga saaraye nin walaalkii gowracay waaguno ilaa garan masinayo aniguna waxaan ku geeraarayaa gobnima gabaygu sow maahan wargedigeen halmara aan gacan u wada taagno ninkii guusha ku dhalin lahaa haddaad cadow u gogoysid oo garaafaad gaari ugu rarta labada goonyode war sideed guul ku degaysaan waad iskuubaysaane magagaxoo sidii guulaama curata gacan lay taga gabayadaydoo dhan baa giyiga laga gardaadshaye maantana aadan ku godladay gebi ahaantiise nin garaaliya wayeel xaaladda way gorgooriyaane wixii kula gudboon birri bay gabay ku sheegane aniguna gadoodaan ohoo gaabsan kari mayo aniguna gadoodaan ohoo gaabsan kari mayo Cabdirasaaq TV-ga caalamiga nabad magaalada